cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa ayuha alaxiba waxay leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga marar badan buu sababta cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada waayo subxaana allahi haddaanad ajarkeeda garanaynin waa aqoon darra ku haysataa aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo haddaad aragto qof aydhal ah jahlnima haysata walow uu xoog badan yahay walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo walow uu caqli badan yahay mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidnu waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba se aan aayadda qur-aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tabardarradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allaahu ghuraaban yabxahu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajastu an akuuna midla hada alguraab فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين إن آدم كي ولالكي دلي مركو الدنبقى قيستي ولو حوق وينا يحوق ولالكي كدلي وقبي كدب قوان ضرده هيستي وحي نقطي سيئو قالوا ميتكي ولالكي بقرن واي إلهي باوحو صادري توكا مركا أقوانتا إن وحل حوالا براي توكا كالور دنتي قدو قضايا آصي wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaan halay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa waylataa acajastu an akuuna midla hada alguraab halaagaygiyow kaalaye ma waxaan ka liitaa ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kala noqdo idan jahligu tukuu macallinkaaga dhigi dad badanoo maanta soomaaliyeed oo iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaanba way garan waayeen jahligaa fadhiisiiyey beer si loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiiyey jahligu markaa dadka wuu duleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa almu'min alqawiy khayru axabu ila allahi min almu'min daciif wa fi kullin khayr quwada la sheegaya aqoontaa ka mid ah sawgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inagala dardaarmayaa istacin billaahi walaa tacjis ilaahay kaalmayso oo isticaanadaada ilaahay kaalmayso hana caajisin qur-aankana ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa in badan baa ilahay wuxuu qur-aanka kaga warramaya reer banu israa'iil oo la leeyahay khuduu maa aataynaakum biquwa war waxaan diinkaannu idiin soo dejinnay war si ijtihaad iyo firfircooni iyo xoog uu ku jiro khuduu maa aataynaakum biquwa baa ilaahay leeyahy nabi muuse maxaa ilaahay leeyahy wakatabnaa lahu fi lalwaaxi min kulli shayin mawcidatan watafsiilan likulli shay fakhudhaa biquwa wa'mur qawmaka ya'khuduu biaxsaniha ilaahay nabi muuse ku leeyahy fakhudhaa biquwa si dadaal iyo tamari ku jirto ku qaado khuduu maa aataynaakum biquwatin wasmacuu qaaluu samicnaa wacasayna
markii ilaahay uu nebi yaxya la hadlayay waxaa la yidhi yaa yaxya khudi alkitaaba biquwa war nebi yaxyow kitaabka si xooggan u qaada baa la yidhi si jiddiya si ijtihaadu ku jiro si dadaal iyo firfircooniyo ku jirto ilaahay kitaabkiisa u qaada baa la yidhi waxaa qur-aanka ilaahay uu ku sifaynayaa dadka wahsiga iyo cajsigu hayaa inay sifada munaafiqiinta tahay wahsigu ilahay wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala munaafiqiinta ilaahay wuxuu ku tilmaamay salaadda hadday u kacaan waa kuwa kaca iyagoo kusaala ah iyagoo wahsi iyo caajis u hayo walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusaala salaadda lama yimaadaan baa ilaahay yidhi iyagoo xaaladda ku sugan mooyaane ayuha alaxiba markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi ahaaqaltum ila alard war dadka mu'miniintahu maxaa idinku dhacay oo haddii laydin idhahda ilaahay tiisa u soo baxay jihaadka u soo kaca ahaaqaltum ila alardi baa layidhi maxaa dhulka idinku cusleeyey ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici kari weydeen aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahy famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة kuwa munaafiqiinta jihaadka ka wahsada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu hubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubati'anna waxaa idinka mida baa ilaahay leeyay mid dadkaba cagsi gelinaya oo fadhiisinaya oo dib u reebaya waxay yidhahdaan daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhaahdeen laziness-ka iyo waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6800 meelaasay noqotay qolana 5700 maanta waa kuwan yiraahdaa xanuunada ugu tirada badan ee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yiraahdaan maxay exercise laan exercise-ka la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuurto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisaba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad wax tar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta galaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagii baa khatar galaya walidaalka bay atabada maanta waxay tilmaamayaan qofku inuu nashaad iskaliyo ma macaan baad qabtaa ma sokor baad qabtaa ma kan baad qabtaa maalintii intaa soco intaa qabo inta yani waa wax qabo fadhigu marka aqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jirkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduuna uma fiicna laziness marka nolosha meel laba wax kaga male ee waxa meesha taala qofka mu'minka inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo waliga hamoodina waqtigu ku dhaafay dadka barba isle faataka alqatar ka sheegi jireen yani waqtigiiba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta xalaya dadka baraysa oo maanta kuntan jirbaad ama waxbaad baran karaysa dad ba kuntan jirreynta ku bilaabeen culimadii waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adiga waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat as-saa'a wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an la taqum hatta yaghrisaha falyaghrisaha nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco
oo aad gacanta ku hayso fasiilada waxaa la yidhaha geetimireedka yara la abqaalayo geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaadhsiin karta inaad abqaasho buu nebigu leeyahay abqaal beer haddaad ka gaadhsiin karta beer oo innaga iyadaan qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa una leenahay waan gaboobay soomaalidu dee 40 jirkay ku gabowdaa soo maaha soomaaligii markuu bini aadamkuba u xoog badnaa markuu gaadho ayuu yidhaahdaa waan gaboobo wax waliba way iga dhammaadeen bini aadamku caqliguu ka gaboobaa haddaad maanka ka gabowdo ayuumaad gabowda inta kale waxbaad qaban kartaa sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin